السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا بالسلام الصومالي محمد ميل كستو العالم كجوجتان دمانتين waxaan doonayaa inaan wax yaro ka soo kordhay xaaladihii Oromada iyo Soomaalida inaan idin sheego Soomaalida oo dhan gaar ahaan Soomaalida reer Itoobiya saaka waxaa dhacday shalay baa waxaa dhacday magaalada Baabili ayaa dadka Soomaalida ee degan intay naftooda u cabsadeen ayaa waxay damceen inay cararaan oo baqdaan oo aadaan dhinaca Jigjiga marka waxaa dhacday waa la soo celiyay si kastaba ha ahaatee mayna bixin oo dadkaas waa la soo celiyo waxaa lagu yiri iska jooga guriyihiina iska jooga la yiri marka sidii bay ku nagaadeen waxaa kaloo dhacday waxaa lagu soo daadiyay magaalada Baabili ciidamo federal Ethiopia federal police baa lagu soo daadiyay oo iyaga kala celinayay dadka qofkii ay yacni u maleeyaan inuu rabsho wadayo waxaas inay ka hortagaan baa loo keenay hase yeeshee saaka subaxii waxaa isdagaalay laba xaafadood oo la kala yiraahdo Raaciga iyo Ganda Xuseen waa isla Ganda Xuseen baa la yiraahdaa laakiin de xaafadda Oromada gaar ahaan loo sii yaqaanaa Ganda Xuseen qof kastoo reer Baabili hadda uu garanaya marka aan saaleeyahay dhalinyaradii iyo haweenkii iyo dadkii reer Raaciga ahaa ee xaafadda Soomaalida ayaa waxaa dhacday markii ay ka joogi waayeen daantaansiga iyo kibirka iyo waxa lagu hayo ayay iyaguna waxay u diyaar garoobaan inay istifaacaan si kastaba ha noqotee saaka weerar bay isku qaadeen Ganda Xuseen iyo Raacigu markii ay dagaalku dhaxdhaxda maray waxaa yimid ciidamadii booliska federal Ethiopia sida la ii sheegay wallahi wax fiican mayna sameeyno federaalku waayo dhalinyaradii Soomaalida aad bay u garaaceen ulihii iyo wixii ay wateen way ka qaadeen kuwii kalena si xurriyad abay u yay magaaladooda u mareen aad baan uga xumaaday waayo waxaan ogaaday ciidanka halka la keenay ee booliskaasi inay ahaayeen ciidan Oromo ah oo de korka federaalka ka ahaadaan laakiin dad Oromo inay ahaayeen baan aqoonsaday is ahaanba ciidanka federal booliskii waxay u badan yihiin qoomiyadda Oromada de qof walibana qofkiisa waxba ma yeelayo annagaba haday ciidankeenu noo yimaadaan horta inkastayna Soomaalidu saahayno hadda haday ciidamadeena new booliska naloo keeno anagu hadaan ka daranaa anagu mayna qabanayaan qofkii gardaran ma raaco dadnimo iyo waxaas kuma raacaan dadka iyo Soomaali baa tahay waxa kuma raacaan sharciga oo bay ilaaliyaan laakiin Oromadu saama ahe sharci iyo waxaas ma ilaaliyaan afka luqadaas ay ilaaliyaan iyagu saasay sameeyeen dhalinyaradii iyo dumarkii reer Raaciga ahaa iyo Ganda Xuseen markay islaayeen waxaas ku dhacay reerkii Raaciga ahaa reer Baabili ulihii iyo wixii waa laga guray guryihii baa lagu soo xiray waxa lagu yiri barnaamijka uma soo bixi kartaan dhalinyaradii Ganda Xuseen suuqooda iska marayaan ee Oromada ahaa waxa kaloo dhacay marka aad baan uga cadhooday wallahi waxa ay boolis federal ku kaceen inkastoo ayna qoomiyado kale ku jirin oo ay yihiin un kulay ciidankaasi ciidan Oromo ah oo Oromo u badan tahay anaga waxa noo fiicnaan lahaa ciidanka militariga isagoo lagu soo daadiyo ciidanka militarigu ma aha Oromo waa qoomiyad kasta ku jirta uma badna Oromo uma badna ciidanka militariga Ethiopia marka hadii la doonayo in dadkan la kala celiyo oo la kala dhaxdhaxaadiyo anigu waxaan jeclaan lahaa in lagu soo daadiyo dhaxdeena ciidanka militariga sida ay si cadaalad ah bay uga shaqeynayaan ciidanka militarigu si cadaalad ah bay u kala qabanayaan dadka qof jeclaysi ma sameynayaan laakiin ciidanka federaalka booliska maadaama ay Oromo u badan yihiin qaybaha meelaha ka howlgalaana ay Oromo yihiin basaan u ognahayba de Oromo nin jeclaysi lagama waayayo
waxaa kale oo dhacday wallaahi oo aan aada uga qiirooday shalay marka ay dadka soomaalida ihi baqanayeen oo ay cararayeen ay rabeen in ay dhinaca soomaalida u cararaan ee jigjiga ayaa dee hebel iyo heblaa la isu yaqaanaa oromada iyo soomaalidu waa dad weligood wada deganaaye hanti ahaan haddii la yidhahdo dadka soomaalida hanti badan dadka magaalada horumariya ganacsatada iyo wax walbaba waa dadka soomaalida ee magaalada magaalo ka dhigayba dee isuma eka xaafadday soomaalidu degan tahay iyo xaafada kale isuma eka xaafadda soomaalida aad bay u dhisan tahay aad bay ganacsigooda wax walbaba dadka dee meesha magaaladuba ay magaalo ku tahay ee baabili laleeyahayba waa dadka soomaalida ah awalba laba buulo waxay ahaan jirtay aana gaariguba ku istaagin bay ahaan jirtay maantana meesha adduunka loo dalxiisay Ethiopia ay noqotay Soomaali baana ka dhigtay hase yeeshee shalay guryahoodii iyo hantidoodii saa ahayd aad baan uga xumaayay inay dadka Soomaalida reer baabile sidaas sameeyaan intay maryo yaryar oo xunxun ka dhex qaataan in ay damcaan in ay hantidoodii iyo dalkoodii iyo dadkoodiiba in ay intay ciyaalkoodii iyo dhowr cal qaataan inay ka dhex cararaan aad baan uga xumaayay sababtoo ah meel aadan ku dhimanin horta weligaa ma helaysid dhulkaaga maxaa dhulkaaga loo yidhi dee waa inaad markuu nabad yahayna si qurux badan ugu noolaataa marka uu dadku cadowku soo rabo inuu dalkaaga kaa qaatan inaad difaacdaa loo baahan yahay ma markuu nabadda tahay basaad deganaanaysaa taasi waa qalad weeyaan reer baabili iyo dadka xuduudada oromada lalahoo dhan waxa aan ka codsanayaa inayna wadankooda ka cararin hadday ku dhimanayaan ay ku dhintaan hadday ku noolaanayaan ay ku noolaadaan ilaahay xaq uu heliyaa soomaaliduna gardarrada ma wado ee qoomiyada dariska aan nahay baa gardarrada wada gardarraduna waa wax iska dhamaada weeyaan ee colaaduna ma sii jiraysa dadku in ay istifaacaan baan ka codsan lahaa ta kale waxaa jirta reer baabiliyow waxaa maanta dhacday shalay markaad cararayseen way idin daawanayeen dadka oromada ihi ninkii reer Gande Xuseen saaka markii aad laydin kala qabtay idinka iyo Gande Xuseen muxuu idin yiri ninkii ugu weynaa intuu madaxa ruuxayba wuxuu ku yiri reer baabili weligay ismaan lahayn buu yiri ninkaasi weligay ismaan lahayn kuma aanan fikiraynin Soomaali baa intay aayar laba maro oo madmadow guryahoodii hantidooda ka dhex qaadato cararaysa weligay qalbigayga maana gelinin buu yiri ninka reer Gande Xuseen Oromadii laakiin waan qiiroodo waxaan ogaaday buu yiri intaan dhagaxa isku taago saa u fiiriyay markaan arkay hebla iyo hebel oo wada garanayo oo maryo yaryar guryahoodii daaraha intay ka dhex qaateen cararaya yaa waxaan ogaaday yiri inaan wadanka anigu leeyahay oo dadkani ayna dalkoodii ahayn waayo qof ay dalkiisa tahay ma cararu yiri sababtoo taasaba ay cadayso yiri inayna Soomaalidu dhulka lahayn maadaama ay guryahoodii iyo hantidoodiiba ay ka carareen taas ay cadaynayso yiri inaan anigu leeyahay oo iyagu lahayn dadka reer baabiliyow abka idinka iskale idinkii oromadu dhulka waad isla leedihiin idinkuna gaaru ma leedin oromaduna gaaru ma laha laakiin meesha hadda lagu socdo idinka iskale haddaan si nabada loo wada deganaanaynin idinka iskale magaalada idinkaana ku badan idinka badan sababta keentay inaad intaad maryo yaryar qaadataan aad orodaan anigu ma fahmin ilaa hadda ee waxaan idin oran lahaa dib dambe waxaasoo kale yaan la idinku maqlin waa maxabahdilaada intaa la egiyo maryaha ayaad la ordaysiin aga shacab weema shacabaad ka cararaysiin yaa xataa hadduu ciidan idin soo weeraro dhulkiina ku dhinta kollayba daylan dawlad baad leedihiin oo federaalkii iyo waxaa imanaya dawladda haddii uu xataa aad ka niyad jabteen ciidanka booliska federaalka ee meesha ka howlgalaya uu oromo yahay uu garab siinaya iyaga haddana inaad adkaysataan weeyaan inaad adkaysataan oo istifaacdaan baa loo baahan yahay inta ay idinka imanayaan dawladda dhexe iyo kilalkiina intuu idinka imanaya inaad idinku istifaacdaan oo ku adkaysataan baa loo baahan yahay xageed guryaha ugu soo banaynaysaan yahuu war meesha ha ka cararina guryihiina ku dhinta oo dhulkiina ku dhinta ma baabili baa jirtay idinka ka hor baabilida idinka ka hor jirtay waatay ee laydinku bootaynayaay waa baabilideed baabilida Soomaali ka hor jirtay ee lagu bootaynayaa waa baabilideed annaga tani awowyeedana ku dhasheene ya waa baabilideed
marka waxaan oran lahaa calaa iyo taxaal dadka reer baabiliyow idinkaa baabiliis kale kollaba waad dhimanaysaayo haddaad si xun u dhimato haddaad si fiican u dhimataba dadkani kuma badaynayaan soo maa waa inaad isdifaacdaa adoo waa adna wax dilaya adna dhimanaysid aad dhulkaaga difaacataa waxaaba laga yaabaa inaadna dhimanin waxaa laga yaabaa ina haddaba waa laydin soo kala dhex galay oo waxaa yimid qabaalaha dhex ordaya waa laydin kala celinayaa ciidankiinii baa xaggan jooga dowladdiibaa indhaha idinku haysa si kastaba ha ahaatee waxaan idinka codsanayaa please and please dadka xuduudada oromada lalahow dhulkiina ha uga cararina oromada waa maxay salfudeydka intaa leeg masaase dhul ku sheeganaysaan mise dhul aan loo dhimanin baa la helaa waan salaamayaa dhammaantiin intaasa soo kordhay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu